midda labaadna waxay ahayd doorashadii 2022 dhacday waxay ahayd doorasho runtii dalkan u horseeday meel khatar ah. waxaan hadda isla afgaranay dowladda xanaan doorasho annaga mucaaradka iyo iyagu maxaafid ah mar dambe aan gacanta u gelinayn qof siyaasi ah inuu soo xulo barnaamijka federaalka Soomaaliyeed. arrintaas waa arrinta ugu muhiimsan ee shacabka Soomaaliyeed siinaya fursad qofka ayaga mathalaya walow weli qof ay jufaysan yihiin quraastii laakiin shacabka siinaya fursad ah in ay u odeeyaan qof alla qofkay rabaan. dalka kan waa inaan ka baxnaa barlamaan iyo xildhibaan jufo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال ميل كستو جوجتان سو دوادا وشاني لباتنك اغوست السنة كلا بكون لباتن يشان وحن برنامج كنا يدون كل وداقي دونا حسن شيخ oo guushii ugu weynayd ka gaaray mucaaradkii Muqdisho iyadoo guud ahaan badhagta dhiiga loo diray mucaaradkii la kala jabiyay sidoo kalena markaasi shirqoolkii ugu cuslaa loo dhigay oo ay ku dhaceen 10 qodab oo ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan kuwa isbaara loogu dhigtay qorshe kasta oo mucaaradku ay doonayeen inay ku hor istaagaan dadaaladii iyo qorshayaashii Xasan Sheekh Maxamuud uu waday. waxaan barnaamijkan idin kula wadaagi doonaa qodobadii mucaaradku ku doodayeen oo guud ahaanba Xasan Sheekh ka laabtay. mucaaradka Puntland iyo Jubbaland iyo kuwii Muqdisho qodobay ku doodayeen kulli uu ka laabtay balse haddana waxa loo dhigay isbaaro aysan sinaba uga dulboodi karin. haddii Mareykan ay soo taagaan waxa ay ku sifoobayaan inay yihiin qaswadayaal. barnaamijkana idin kula wadaagi doonaa 10 qodob sharaxaad dheer baan ku bixin doonaa sidee mucaaradka loo khiyaamay Xasan Sheekh Maxamuud muxuu isticmaalay khuburadii arrintan ka shaqeysay dhammaanba warbixinahaas ayaan idin kula wadaagi doonaa. waxaan ka afeefanayaa inaan ahay anigu dhexdhexaad Xasan Sheekhna meelaha aan kaga aragti duwanahay meelana ma taqaanay aan ka taageersanahay ay ina siman yihiin xaqiiqaduna inaan banaanka keeno waa biyo kama dhibcaad soo dhawaada dhamaantii aynu ku bilowno intaana idin la wadaagin qodobada faa'iidada u leh 10 qodob mucaaradka iyo kuwa faa'iidada u leh Xasan Sheekh iyo ma taqaanay qaabka qodob kasta Xasan Sheekh uu faa'iido ugu yahay. nimanka mucaaradka horta siyaasad xumo miyay ka tahay ma nafsigii farmaajo haysta macruur agoonaha caanahood bay cabeen kala lama garanayo mid kastaba geed ku qabsada waa la go'ayaa. Axmed Madoobe iyo Dani waa ogeydeen waa la go'een kuwii Muqdisho sidii maalin kasta shir ay ugu sii socdeen oo ay u qoslayeen oo ay maalin kasta ma taqaanay ay shir uga qayb galayeen ayaa siriqdii ugu cuslay loo dhigay. horta Xasan Sheekh wuxuu wax badan ka bartay shantiisii hore ee uu dalka hogaaminayay 5 sano oo mucaarad ahaa wuxuuna haystaa khibrad muddo 10 sano ah. waa 5 sano oo dalka xukumayay 2012 ilaa 2016 ilaa 2017 iyo 5 sano oo mucaarad ah. wixii uu ka dhaxlay 5 sano buu horta meesha la tagay. siyaasadiisa wuxuu ku darsaday waxa la yiraahdaa saaxiib ma jiraan danaysi siyaasadeed u yaqaan Xasan saaxiib baa nin baa ku codeeyay laba ku codeysay waxaas ma yaqaan siyaasaddu inay danaysi ka dhisan tahay uu maqlay nin walba markuu dantiisa ku gaaro laad furta ka galiya. waa wuxuu ku sameeyay Xasan waa wuxuu ku sameeyay Siciid Dani jaranjaradii uu ku fuulay kuraasta Siciid Dani baa kamid ahaa. Axmed Madoobe waa kamid ahaa. Axmed Madoobe markuu ka ansaxsaday intuu rabay banaanka u tuuray mucaaradkii Muqdisho sidii waqtiga looga dhuminayay baa iyagina banaanka loo tuuray. muxuu sameeyay Xasan Sheekh? Xasan Sheekh wuxuu isticmaalay istiraatiijiyad nimanka mucaaradka markay arkeen inay is aruursanayaan oo qorshahooda ugu weyn uu yahay inta aan la gaarin May 2026 inay Xasan Sheekh Maxamuud humbulaad u sameeyay. humbulaad ma taqaanaa inay gas iska sii kiciyaan oo ay ka hor istaagaan muddo kordhin iyo in ajandihiisa uu dalka ku sii joogi karo oo ma taqaanaayay u hirgalo xilliga ololaha bilaabeen oo mucaaradnimada bilaabeen waa Xasan Sheekh hal san u harsan tahay way Muqdisho isku urursadeen. wuxuu wacday Shariif Xasan wuxuu wacday Umar Cabdirashiid wuxuu wacday Daahir Geelle wuxuu wacday gudoomiye hore baarlamaanka Maxamed Mursal. mucaaradka lagu dhex darsaday kudladaas mucaaradka ku dhex darsaday qorshe kasta iyo istiraatiijiyad kasta iyo wax kasto ay diiday oo ay rabeen uu la socday
madaxtooyadu kala socday waxaana u soo gudbinaya raggan wax kasta taaka kasto ay qaadaan golaha samata bixinta la bixin waa la sugay maalin kasta shir baa looga yeeray waa loo jubalkeeyay wax kasta waa la socday waayadii nimankii beesha caalamka markay arkeen mucaaradka ay dheen xasan oo shir qabo Soomaalida shir u qabo xasan culaysa soo fulay mucaaradka waqtigii waa laga lumiyay gol uu aqoonsaday iyagii buu kala jabiyay isku aragtiba ma ahan buu la wadaagay beesha caalamka nimankan mucaaradka ila tartamaya isku aragti ma ahan dani wuxuu doonayaa inuu musharax noqdo oo madaxweynaha Soomaaliya noqdo oo ma taqaanay wuxuu awood xildhibaanada dhan inuu isagu soo xushay 2022 Axmed Madow wuxuu rabaa inuu Jubbaland sii joogo awood xildhibaanadana soo xusho Sheekh Shariif wuxuu rabaa inuu noqdo ma taqaanay madax musharaxiinta isagu rabaa in kursiga loo dhiso aan kulli Cabdiraxmaan Casuur khayr kulli beesha caalamka la wadaagay intaana muhiim ah buu dhahay intaana ay muhiim ah nimanka odayaasha ah buu soo kala jibiyay horey baan idin ku sheegay in dastuurkii la bedelay iyo ra'iisul wasaaraha awoodiisa oo la wiiqayo iyo in teendhada lagu laabanayo ay tahay wax aan la hori doonin xasan odayaasha markuu waqtiga ka lumiyay sirtooda iyo dhan uu ogaaday buu intiiba ka laabtay laakiin shuruudaha la hordhigay mucaaradku maxaa lagu mashquuliyay doorashooyin qof cod la qabanayaa baa lagu mashquuliyay waxa lagu mashquuliyay ma taqaanaayay ii sheeg aan ra'iisul wasaaruhu awood ma leh oo la wiiqaya madaxweyne ku xigeen baa laga dhigayaa sida Mareykanka waxa lagu mashquuliyay dastuurka 4 cutub baa la bedelay waxa lagu mashquuliyay hal xisbi oo xasan sheekh maamul goboleedu ku jiraan baa ma taqaanay wadanka ka shaqeynaya intaas lagu calaqay intii bay ku doodeen intiiba waa laga laabtay shuruudahana waa la hordhigay shuruudaha waxa ku jira muddo kordhin waxa ku jira ma taqaanaayay inuu xasan sheekh muddo dheer sii joogo waxa ku jira ma taqaanaayay in hadii qodobadan hirgeli waayeen iska sii joogo meesha mucaaradku waxay doonayeen waa loo tanaasulay waa la yeelay balse haddana taa kala la hordhigay taa kadaas marka waxay qaadanaysaa in xasan sheekh muddo kordhin helo inta la gurayo taa kadaas waxay qaadanaysaa muddo kordhin waa meesha aan ka leeyahay war mucaaradkan ma nabsigii farmaajo ahaya mise caruur agoona caanahooda ay cabeen waa meeshaan ka leeyahay farmaajo wax kasta qorta Sayyid Abdullahi Daniyo qoro Sheekh Shariif oo qoro wax walba qoro nimanka waxba daba socda waa kana marka horta xasan sheekh qodobadii ugu muhiimsanay mucaaradku ay ku doodeen waa ka tanaasul wixii yiri dastuurkii 2012 baa ku laabtay wixii aan qorqortay waa ka laabtay haye ra'iisul wasaaraha أنا مقعاوي وسيد مدحين فرماجة ويسقى مقعاوي جري برلمان كحق له إن أنسحيان أين عدك وديدان إذا وان كلابتي دور شو ينقف عضه وآد إلى هيدين حسن بهالحزب قرن سمايستي حزب قاسو يقولها أنت ولا كعان كالصوماليين وان كلابتي ما حد ربطها مدحينه oo Allah idin madaxweynaha is caleemo saarayo dad buu xiro inuu meel ku xariisto iyadiina waan ka laabtay xildhibaanada 329 ka 275 xildhibaan iyo 54 senator waxa lagu soo dooranayaa heer xisbigii 10% kuraastaas hela 329 ka oo macnaheedu yahay xisbigii 33 cod hela baa u tartamaya doorashada madaxweynaha xildhibaanada madaxweynaha dooranaya oo xisbiye ka soo baxayna kuwaas madaxweynaha dooran doono haye afaanti xildhibaanada awal waxa soo xuli jiray madaxda maamul goboleedyada baa boobtay waliba doorashadii ugu dambeysay xun bay u foolxumeeyeen waana waxa ay mucaaradku ku cirarayeen mucaaradku waxay ka cirarayeen in Axmed Madoobe iyo Dani awood ku laabato meel dhaxin la isugu yimaadeen rabeen waa meeshii dhaxo ay doonayeen waxa lagu yiri markay xildhibaanadii aad ka baqayseen in Axmed Madoobe iyo Dani maamul goboleed awood u yeeshaan shacabka soo dooranayo doorashooyinka golayaasha deegaanka marka hore la qabanayaa oo maamul goboleedada waqti bay qaadanaysaa 9 bilood ma lagu qaban karaa golayaasha deegaanka markaas kadib bay xildhibaanada dooranayaan
senatarada sidii awal ma ahayd baarlamaanka maamul goboleedyada soo xulayo soo dooranayo orday ka soo dhaadhiciya marka Axmed Madoobe iyo Dani baa lagu yiri Axmed Madoobe wuxuu doonayay sharciyad Siciid Danina waa musharax ma rabo wuxuu rabaa inuu awoodiisa soo ceshado isagu xildhibaanadii u yeerto qorto waxa la yiri markii anigu diyaar baan ahay ordaya Dani ka soo ansixiyay intaas maxay sameeyeen markii ilaa taagan yihiin odayaashii halka waa lagu garaacay qaaba lagaga yeersi waxay ka cararayaan Siciid Dani iyo Axmed Madoobe balse waxay awoodiyo dhan ku wareejiyeen Xasan Sheekh waa loo yeeray maxaa rabtaan baa leeyahay waxaan rabnaa bay dhaheen inaan lagu laaban doorashadii 2021 ee boobka ahayd doorashadaas waxa dhacday bay dhaheen in maamul goboleedyadu musharaxiin sameystaan salaano kale Puntland oo kale madaxweynaha joogay baa musharax noqday annaga musharaxiina waxaan rabnaa codadkaas in ma taqaanaayay uu madaxweynaha maamul goboleedku ku ololeynay annagu aan fursad u helno xildhibaan kala soo baxno waa sax doorasho qof iyo codana ma rabno meel la kama dhacayso haye maxaad rabtaan markii meel dhexe meeshii dhexe tabeetan noqotay ha meeshii dhexe baatan noqotay xisbiyadiina waa la adkeeyay 25 way musharaxiintu xisbiyada la rabo shuruud baa lagu xilay 10% xisbigii kuraasta helaan waa xisbi qaran 25 kan haday xisbiga samaystaan 10% ma helayaan waxay ku qasbanaanayaan inay isku biiraan oo ma taqaanaayay isgaashaan buursadaan oo xataa ay keensadaan hal xisbi oo 10% kuraasta hela 10% waa intee 33 xildhibaan xisbigeela waa xisbi qaran Xasan Sheekh muxuu uga faa'iideysanayaa tan Hirshabelle Galmudug Koonfur Galbeed iyo maamulka Waqooyi Bari isaga gacanta ku hayo xisbigiisu waa forafayd 100 xildhibaan iyo 200 xildhibaan la soo baxay xisbigiisu iyagu Jubaland kama door ma aadi karaan Axmed Madoobe lama aqoonsado Puntland ma aadi karaan oo Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu dhanba waa diidan hal jirna kama qeyn karo maxay sameeyeen marka وانا نمر أنا سلسة عنا نول موقف هيستو مع عبد الرحمن عبد الشكور بقول له حزبك يسوي ذا شروح وقدر يا حزبك الشيخ شريف وامية ما فرماتش حزبك السنة بدين والله وقدر يا ما تغنى بالك وامية هراني يقول شيء إنه ما كان عقبة هيستو عقبة وانا نفسي فرماتش أما عرور أقوني عنا كعبين ها وحكى سعونا يا سوماليا وعشرة ودد لا يسكت اللي ضيوي ها دنبي يلا قليبه أمضى لنا جرى يا وحق رسمي أهوي جيت كي قبصدان بولا لا غويني ولا لا رجريا سو غلا لي دورشدا تنددي بان aadayna bal wili tendadii baa la aadaya dastuurkii aan faktay waa ka laabtay ra'iisul wasaaraha awoodiisa inuu celiyay soo gala doorashada marka waxay ku qasbanaanayaan in ay diidaan oo haday diidaanna waa qasoodayaal beesha caalamka la wadaagaya haday yeelaanna waqti bay waxay ku qaadanaysaa in la hirgeliyo waxa dheer qodobada in dastuurka degdeg loo dhameystiro دستور كإنكم ميل جارك لك سام وقت بيقادنا سا أنت اللي يسوي يا إمام القبلية ده وقت بيقادنا سا أنت اللي يسوي يا إمام القبلية وين صحيحين وين هي صحيحين معارضكم وهي رقبة لو قد أحضر صحيح رقي لو قد أحضر صحيح صحيحي بطلان أنت لقى داد عنا يو أنت شو بلنا لقى داد عنا يو سقال بلود أنت هوس شغال ملوقة من كروا مايا وين مدكردين وين مدكردين وين مدكردين ما دام أي سودك دقين معارضكم حسن الشيخ محمود وحيبه هيد بقول هدي معارضكم أي معارض ما بلا هايين حسن الشيخ مركم مدحلات كي سودة ماذا أودو دون ولا جحيو بينها سيدي فرماجو يجونا واحد يصل هايين سيدي فرماجو كلا يوسن مدكرين انت بوق قاس شرؤوسن هلين أو واحد 10 كبرني ينحلقي فرماجو بل سوى الله سوكوبي هذا بوقي للسيقلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خاصة مدكر أنت وهلا يا مركي وضجع مدكر أنت هل سنة أما هل سنة يبر وهلا يا وضجع وحقيقة وهي لا شك وهلا وأيوة أنت شقة قبتها لي يا مركي وحكست أقول هاي وحيبان كلابتي قبتي أنت شقة وأنا دين ترى سليب ولا دستور كان فكتي كلابتي بارا ما تغنى دور شدوا تندي وحول بوان كلابتي فلي إنتان
mid kastana waxaa duuban codkiisii cabdiraxmaan cabdishakuur sheekh shariif farmaajo cumar cabdirashiid aniisha ma taqaanaaye siciid cabdullaahi dani nin kasta wuxuu yidhi dastuurkana waa la dhammaystirayaa doorashooyin qof iyo codana waan qabanayaa doorashadii 2022 waa laga guriya haye qabtaa la yiri bal ila qabta waa la soo hordhigay odayaashii markay guri weyn baa ku dumay guri baa ku qarxay ma taqaanaayay maxaa iyaga faa'iido ah iyaga maadaama la daaliyay oo waqtigii laga lumiyay xasan sheekh ku talagal buu qodobadan u sameeyay waayo waxa ay aaminsan in khubarada siyaasadda falanqeeya in dastuurkii la bedelay iyo doorashooyinka qof iyo codka ahaa iyo ra'iisul wasaaraha awoodiisa la wiiqayay ay ahaayeen qodobo dawladdu ay ku mashquulinayso mucaaradka say qorshayaasheeda kale u wadatana mucaaradku ay la sii dagaalamaan intaas waa siyaasadda ay dawladdu isticmaalaan laakiin sa aakhirka laga laaban doono farmaajo basaas u sameeyay intaas buu waa sameeyay ilaa markii dambe wixii dambe ka laabtay laakiin se farmaajo waxa lagu helay madaxileedkiisa ma joogin uu dhamaaday markaas waqtigiisa taasaa waxay keentay in awoodihiisii dhan ay xadidmaan oo ra'iisul wasaare awoodi kala wareego iyagoo intaas ma taqaan ay ka cararayo muddo kordhintaas farmaajo hadda muddo kordhin awood lahaa ma jirin laakiin si waqtiga uu sii joogay filada dheera iyaga intaas ka carray waqtiga ninka uu sii joogay ka cararayeen laakiin muddo kordhin sharci ah buu leeyahay hadda xasan sheekh maalinta madaxileedkiisu dhamaado wuxuu leeyahay awooda hadda uu leeyahay oo kale buu leeyahay waayo wuu tanaasulay iyagana waxa la rabaa inay tanaasul ka qayb qaataan oo shaqadan qabtaan beeshii caalamkana waa la wadaagay waa iska dawareeg weey saas iska dawareegaysa saas iska dawareegaysa biya mira doonan lahayda ama loo qaatay intay aamusaan oo luuqaqooda kala joogaan maalinta xasan madaxileedkiisu dhamaado inay cadaadis saaraan maalintaas ama bilooyin ha ku darsado bilooyinkaasna sidii farmaajo kale ay ugu raaxaystaan ilaa farmaajo waa lagu raaxaystay markuu hadda muddo kordhinta helayay aad lagu raaxaystay ra'iisul wasaare bahalkii loo soo magacaabay ma taqaanaa awoodiisii dhan baa la rifay baalii baa laga rifay waxa ma ahayn in iska madluun oo iska meel iska joogo iska waxa ma qaban karin in iska suudkiisa ciidan fil Soomaaliya iska joogo ah bal may sugaan waa kana hadda la hordhigay waxay noqonaysaa xataa haday diidaan inay qaswadayaal lagu tilmaamay iskana daba wareegto sidii loo qancin lahaa waxay qaadanaysaa 2 sano ama 3 sano war meeshan 10 ka socda haddaba qodobka dastuurkii laga laabtay ra'iisul wasaaraha awoodiisii loo celiyay iyo teendadii waa guul mucaaradka xasan sheekhna waxa guul u ah in ururo ama xisbigii hela 10% codadka baarlamaanka uu noqonay xisbi qaran taas oo gaadkaaday mucaaradku nin hadda xilligan u diyaarsan inuu xisbi qaran sameeyo ma jiro madaxweyne dani xisbi male khayr xisbi male farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif baa xisbiyale iyaguna ma ogola midkood inuu ma taqaanaayo midka kale ku biiro doorashadii 2022 qaabkii wax u dhaceen waa laga laabtay labada dhinac guul bi u tahay tan mucaaradkuna mar in awoodda siciidan iyo musharaxa ay ku laabato xildhibaanada iska boobo fil Soomaaliya ma rabto guul bi u tahay qodobkana khatar buu ku yahay mucaaradka in si dhaqso ah loo gudo gal qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka dowlad goboleedyada iyo tan federaalka qabashooyinka doorashooyinka golaha deegaanka dalka caasimadaha magaalooyinka caasimadaha degmooyinka dalka iyo dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo tan dowladda federaalka waxa lagu heshiiyay in sida ugu degdeg badan loo dhameystiro cutubiyada wali harsan ee dastuurka si loo sugo sharciyada iyo tan waqti ay qaadanaysaa waa waxa uu muddo kordhinta u dalbaday arrintan guul bi u tahay labada dhinac waxa la isku raacay in si wada jir ah looga wada qayb galay geedi socodka tooska ah ee doorashooyinka qof iyo cod oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka golaha wakiilada ee dowlad goboleedyada ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka haddaan si guud kula wadaago macnaha warta murtiyeedkan waxa weeye muddo kordhin hal la isiyo waana ka laabtay dastuurkii aan bedelay iyo ma taqaanay ra'iisul wasaare awoodiisii aan dhimay laakiin si waa inaan lagu laaban doorashadii 2022 dalka ka dhacday dastuurkana waa in la dhameystiro waana inaan anigu ku suntunaado inaan noqdo ninkii ka guuray hanaankii
doorashooyinkii dadbanaa madaxweyne sheekh shariif wuxuu ka guuray hanaanka odayaashii ergooyinkii doorashooyin xildhibaanaa buu qabtay xasan sheekhna wuxuu doonay inuu taariikhda galo u noqdo ninkii ka guuray doorashooyinkii dadbanaa ee xisbiyada u guuray muhiimaddu waa intaas weeye mucaaradku markay waxay doonayeenna way heleen waxaysan doonayn oo faa'iido u ah filla soomaaliyana meesha way ka muuqdaan markaas waxay noqonaysaa in dhinacyadu mid walba midka kale uu ka fikiro suu tiisa ugu qancin lahaa intaasaa waqti qaadanaysa marka waana xeelad iyo shirqool loo dhigay mucaaradka wixii macluumaadda masoo kor halkan idin kula wadaagi doonaa bye bye aad baan idin salaamaya